qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda la xiriirta xarigii maamulka Puntland oo albaabada isugu laabay TV-yada Universal iyo Somali Channel xafiisyadoodii ku yaalay deegaanada uu ka arrimiyo. bulshada reer Muqdisho ayaa waxay sheegeen inay howl muhiim ah u hayeen shacabka Soomaaliyeed TV-yadaasi isla markaana ay aad kaga xun yihiin hadalkii ka soo baxay maamulka Puntland ee lagu xiray telefishinadaasi. bulshada ayaa intaas raacisay inay ka heli jireen xogta dhabta iyo xaaladda ka jira deegaanadaasi si dhameystiran. waxay sidoo kale sheegeen in ay kala socon jireen hadba xaaladda deegaanadaasi halka ay marayaan. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo arrinkaasi ka hadlaya. haddii aan ka hadlo arrinta ku aadan xiritaanka la xiray telefishinka caalamiga ee Universal TV iyo Somali Channel oo ah qaybta maamul goboleedka Puntland, marka maadaama saxaafadda ay tahay waxa kaliya u taagan shacabka Soomaaliyeed ee u shaqeynaya isla markaasina soo gudbinayay dhibaatooyinka ka jira ama haysto shacabka Soomaaliyeed. maamulka Puntland waxaan ka codsanaynaa marka dhawaanihii ugu dambeeyeen meelaha ugu tacadiga badan ay tahay maamul goboleedka Puntland. waxaan ka codsanayaa marka madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland mudane Froole in maxaa la yiraahdaa saxaafadda Universal TV iyo Somali Channel ay u ogolaadaan shaqooyinkii u hayeen bulshada Soomaaliyeed. aan ka codsanayaa iyadoo loo yahay inay ka jiraan saxaafado kale iyadoo ay weheliso Universal Somali Channel ay weheliyo iyadoo kanaaladaasi ay yihiin kanaalada maqalka iyo muuqaalka kale ee shacbiga Soomaaliyeed markasta ay joogaan u tabiya muuqaalada dhabta ah ee ka jira dalka Soomaaliya iyo kuwa dibaddana u soo gudbiya si ay u arkaan shacbiga Soomaaliyeed. taasoo u muuqata in lagu xadgudbayo xuquuqdooda saxaafadeed iyadoo sharciga saxaafaddana etigiskana la dhowrayo wixii xadgudub ay geystaanna loo baahan yahay in loo keeno waalan maxkamadeed si ay iyagu diyaar ugu noqdaan ay ugu hoggaansamaan inay hortagaan maxkamadda si ay u garbaxaan, laakiin aysan habboonayn in shaqadooda la xiro iyadoo aan loo hubinin. aan aad iyo aad ugu xunnahay haddaynu nahay bahda saxaafadda xiritaanka loo geystay TV-yada ka howlgala maamulka Puntland. runtii waxaanu leenahay waxaa lagu xadgudbay shuruucda saxaafadda iyo weliba jiritaanka saxaafadeed. marka sidaas darteed maamulka waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in xorriyaddooda ay u soo celiyaan saxaafadda isla markaasina u ogolaadaan in meeshaas shaqada ay ka wateen ay ka sii wataan. xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka ee Nusaj Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa dhinaciisana waxa uu sheegay inay si aad uga xun yihiin xariga loo geystay telefishinada Universal iyo Somali Channel, isagoona carabka ku dhuftay inay qayb ka tahay la dagaalanka xorriyadda qowlka sida uu yiri. horta aan la soconaa oo shalay ay ahayd markii aan soo gaartay warqad dikreta oo ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ee Puntland amar lagu siinayo in la xiro labada telefishin maaragtay Universal TV iyo Somali Channel. waxaa taas ka sii horeysay 31 Oktoobar markii uu furmayay baarlamaanka Puntland ayaa khudbadii furitaanka madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in uu maaragtay ay jiraan warbaahinno ka shaqeynaya nabadgelyo darro oo uu markaas si gaar ah farta ugu goday Somali Channel iyo Universal TV oo uu gaar ahaan u yiri Somali Channel waxa ay la shaqeeyaan al-shabaabka oo ay lacag ka qaataan sidaasna ay maaragtay ay u faafiyaan propagandadooda. Universal TV-na maalmihii ugu dambeeyay wuxuu yiri waxa ay maaragtay ay ka qayb qaadanayeen ama xasiloon darrada Puntland, balse marka waxaas oo dhan isku soo duubo wax cadeymo ah oo maaragtay cadeynaya in labadaas telefishin ay dambigaas lagu soo eedeeyay ay galeen dawladda Puntland soo bandhigin ilaa hadda. waxaa ka jira maamul, waxaa ka jira garsoor, waxaa ka jira maaragtay nidaam cadaaladeed ka jiro in nidaamka cadaaladda la marsiiyo wixii dambiyaha lagu helo, laakiin aysan maaragtay dhicin in si bareer ah in maaragtay la isaga weeraro oo saxafiyiintii ayagoo awalba maaragtay kooxa aan la aqoonin oo maaragtay ayaguba nabadiid ah ay saxafiyiintii ku dilayeen gudaha Puntland, haddana in dawladdii ay ayagu miciinka bidayeen haddana ay ku soo noqoto ayadii haddana ay dib ugu soo noqoto. taas waa nasiib darro. deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland ayaa sanadkii ugu dambeeyayba waxaa ka jiray kooxo hubeysan oo aan heebtooda la garanayn
kuwaasi oo bartilmaameysanayay wariyaasha ka howlgala deegaanadaasi iyadoo ay jireen in la dhaawacay 2 saxafi oo ka howlgalayay deegaanada uu ka arrimay maamulka Puntland kuwaasi oo walwal ku hayay saxafiyiinta sida oo kalena waxaa bam lagu weeraray xarun idaacadeed oo deegaankaasi ku taalay. Cabduqaadir Cumar Cabdulle, Universal TV, Muqdisho.